kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxtooyada Soomaaliya oo warka soo saartay safarka madaxweyne Farmaajo maanta uu ku tagay Dhuusamareeb duqa Muqdisho oo diiday in uu shirkaasi ka qayb galo haddaba waa maxay sababta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo safar lama filaan ku tagay magaalada Cadaado xilli la filayay in uu ka mid noqdo xubnaha soo dhaweynaya madaxweyne Farmaajo maxaad kala socotaa howlgalka ciidamada Quds Force ee dalka Iran ay ka wadaan Soomaaliya dawladda federaalka oo sheegtay in Iran ay awood weyn ku leedahay gudaha Soomaaliya dagaalka Masar iyo Turkiga oo meel xun gaaray iyo madaxweyne Erdogan oo fariin hanjabaad u diray madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi iyo 32,000 oo arday oo maanta imtixaanka dawliga ah u fariistay qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah waa galab 18 bisha 7 ee July sanadka 2020 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka anagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan ee fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararka arrimaha siyaasadda dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu u ambabaxo magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda maamulada war kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay in maanta gelinka dambe uu ka duuliyo madaxweynaha magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dhanka ay Galmudug madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaraya Dhuusamareeb si uu halkaas uga qayb galo shir ay yeelanayaan madaxda dawladaha federaalka xubnaha ka iyo dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo lagu gorfayn doono wada shaqeynta labada heer dawlad iyo sidoo kale doorashooyinka qaranka ee nagu soo foodle sidaas ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay madaxtooyada madaxweyne Farmaajo ayaa hogaaminaya wafdiga oo ay ka mid yihiin madax kale waxaana socdaalkiisa ku weheliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa la soo sheegaya in uu sababay isagu u gaara uga baaqday shirka Dhuusamareeb isla markaana uu sidaasi uga haray safarka madaxweyne Farmaajo dhanka kale magaalada Cadaado ayaa waxa gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Garowe Axmed Madoobe ayaa la sheegay in ay markaasi taariikh ku leedahay magaalada Cadaado oo uu yaraantiisii ku noolaa aabihiisna aan uu ka ahaa kana ahaa sheekh martiqaadkaas oo uu markaasi isagii wafdigiisa lagu sameeyay magaalada Cadaado kadib safar dhulka ah oo ay uga soo baxeen magaalada Dhuusamareeb Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay markaasi si heer sare lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado oo ay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay qayb ka ahaayeen soo dhaweynta dadka soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland ayaa kor u hayay sawiradiisa calanka Soomaaliya iyo calanka astaanta ah maamulka Jubbaland waxa ayna dadku ku dhawaaqayeen ereyo soo dhaweyna socdaalkiisa toddobaad ka hor uu markaasi ku yimid Dhuusamareeb ka hor inta aanu ka qayb galin shirkii madaxda dawlad goboleedyada ayuu ku ballan qaaday inuu Cadaado tagayo isagoo oo markaasi reer Cadaado fariinta u diray arrimaha xiisaha u yeelaya safarka maanta isku soo aadaya ee madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe ku tagayaan Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa ah khilaaf siyaasadeed ee labada dhinac u dhaxeeya iyadoo oo shirka ka furmaya Dhuusamareeb markii u horeysay muddo kadib ay isku soo hor fadhiisan doonaan labada mas'uul iminkan warar dheeraad ah oo ku saabsan dagaalka Iran ay ka wado Soomaaliya warbixino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya saameynta Iran ee Soomaaliya iyadoo wargeyska Foreign Policy oo Mareykanka ka soo baxa uu sheegay in ciidamada caanka ah ee Iran ay leedahay ay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in laba ka mid ah gutooyinka ugu halista badan ciidamada wadanka Iran ay si qarsoodi ah uga howlgalaan Soomaaliya dhammaan macluumaadka ku jira warbixintan ayuuna si madax bannaan u xaqiijin karin waxyaabaha saxda ah channelkan warqaa TV waxaana markaasi looga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo magacyadooda aan la xusin saraakiisha oo ay ku jiraan baa liiray qaar ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la rumaysan yahay in ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ay gacan saar hoose la leeyihiin isla markaana dagaalamayaasha hubeysan ee Al-Shabaab ay xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyo ciidamada Iran
sida ku cad warbixinta shaqada ay gudaha Soomaaliya ay ka hayaan waa in ay wiiqaan saameynta dalalka qaliijka iyo Mareykanka iyaga oo isticmaalaya al-shabaab oo ay siinayaan taageero maaliyadeed iyo mid hubba. Quds Forces doonka dibadda u qaabilsan Iran ayay warbixintu daaha ka rogaysaa in Soomaaliya ay u iib keenaan shidaalka wadankooda iyaga oo ka iibinaya beec jaban si ay markaasi u jabiyaan xayiraadda Mareykanka ayaa lagu sheegay warbixinta. saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda federaalka iyo booliska Soomaaliya ayay qormadu ka soo xigatay inay xaqiijiyeen ganacsigaas qarsoodiga ah. Iran ayaa sanadihii la soo dhaafay aad ugu dadaalaysay in ay saameyn buuran ku yeelato Geeska Afrika waxaana fulinta qorshahaas ay u martay fursado waxbarasho oo bilaash ah oo ay u fidisay arday qaaradda ah. Iran oo aanan joogitaankeeda diblomaasiyadeed ku lahayn caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaana weli markaasi ka jawaabin eedeymaha warbixinta. Mareykanka iyo Iran oo isku adeegsada warbaahinta si midba midka kale uu waxyeelo uga gaarsiiyo sumcadiisa ayaa waxa dagaalkooda uu salka ku hayaa hiigsiga xukuumadda Tehran ee ku aadan inay yeelato nuclear. Soomaaliya oo kamid ah dalalka soo koraya kana soo kabanaya colaado sokeeye ayaa kamid ah wadamada ay ku dul dagaalamayaan Iran iyo Mareykanka iyagoo isku adeegsanaya awood dawladeed iyo kooxo hubeysan. weli warqad TV ayaad nagala socotaan. fadlan daawada la sii wadaag saaxiibadaada oo shargaray wararkeena aanu markaasi ku laabana magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta daafuray imtixaanka sanadeedka fasalka 12aad ee dugsiga sare oo ay u fadhiisteen in ka badan 32,000 oo arday. Mahdi Maxamed Guuleed Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in maanta uu daafuray imtixaanka dugsiyada sare oo ay ardada ugu gudbayaan heer jaamacadeed hadii ay helaan natiijooyin wanaagsan. Guuleed ayaa u rajeeyay ardayda Soomaaliyeed inay natiijo wanaagsan ka helaan imtixaanka isagoo oo kula dardaarmay in ay kordhiyaan dadaalkooda ay sameynayaan si mustaqbalka ay wax ugu qabsadaan dalkan wax ugu qabtaan. gobolka Banaadir dowlad goboleedyada Hirshabelle Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waqti siman si isku mid ah maanta oo Sabti ah kuna beegnay 18 July oo uga bilowday imtixaanka. waqti ahaan waxa uu dib ugu soo dhacay bisha May sababo ka dhalatay cudurka COVID-19. Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkii 6aad oo xiriir ah ardayda dugsiga sare ay ka qaadayso imtixaan sanadeedka halka ardayda kaalmaha sare gala la siinayo deeq waxbarasho oo dowladdu ay heshay. dagaalka Turkiga iyo Masar ayaa si weyn ugu xoogeystay gudaha labada dal iyadoo labada dalba ay halis ugu jiraan in ay isku farasaaraan dagaalka Liibiya ka socda. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa uga digay dalka Masar in ay faragelin ku sameyso dalka Liibiya isagoo oo ballan qaaday in uu sii wadi doono taageerada dowladda sharciga ah ee dalkaas. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga heshiis cusub oo ay la galeen dowladda Liibiya uu yahay markaasi heshiiskaas mid qayb ka ah qaramada midoobay waxa uu si weyn ugu eedeeyay General Khalifa Haftar in ay taageerayaan Masar, Imaaraadka, Ruushka iyo dowlado kale isagoo ku tilmaamay in sargaalkaas sharci darro uu markaasi doonayo inuu ka afgambiyo dowladda dalkan uu ku qabsado. dalka Imaaraadka Carabta ayuu ku eedeeyay faragelin uu markaasi ku hayo dalka Liibiya iyo taageerada uu siiyo General Khalifa Haftar in ay tahay burcadnimo waxa uuna ku adkaysay madaxweynaha Turkiga in dalkiisu uu taageero buuxda la garab taagan yahay dowladda dalka Liibiya ee sharciga ah ayna meel cad ku tagi doonaan dadka reer Liibiya oo ay shaqo wanaagsan u hayaan. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa shaaciyay in Masar aysan gacmaha ka laaban doonin halista ay wajahayaan amniga qaran ee uga imaanaysa dalka Liibiya waxa ayna talabadaas ka dambeysay markii baarlamaanka taageersan General Khalifa Haftar ay Masar ugu baaqeen inay faragelin ku sameyso Liibiya si looga hortago Turkiga. dagaalka Masar iyo Turkiga oo markaasi khilaaf weyn oo ka dhaxeeya labada dhinac ayaa si toos ah ugu lug leh dalka Liibiya waxaana in muddo ah laga cabsi qabay in ay ku dagaalamaan gudaha dalkaasi. ugu dambeyntiina dadka Kenyaanka ah ayaa muddo markaasi ku xayirnaa Soomaaliya waxaana ay markaasi ammaan weyn kala duldhaceen militariga Soomaaliya. muwaadin Kenyaan ah oo lagu magacaabo Martin Mazagazi ayaa sheegay in uu weli markaasi u careysan yahay ciidamada dalkiisa kadib markii ay caawin waayeen xilli ay duruuf adag ku haysatay
qaybo ka mid ah Soomaaliya. taas beddelkeeda waxa uu ammaan weyn uu markaasi huuyay ciidanka xoogga Soomaaliya ee SNA maadaama ay gargaar oo ay ka heleen oo soo badbaadiyeen. ninkan oo ka mid ahaa 7 Kenyaan ah ayaa waxa ay ku go'doonsanayeen deegaan ka tirsan Jubbaland sababo la xiriira xayiraadda la soo rogay ee coronavirus xilli ay doonayeen inay ku laabtaan guryahooda. shakhsiyaadkan ayaa muddo 7 iyo markaas 72 cisho ah ku xayrnaa deegaanka xuduudda dhaca ee Ras Kamboni kaas oo 170 kilomitir u jira magaalada Kismaayo. maadaama ay si jirin cid ay ka garinayeen goobtaas muddadaas waxa ay adeegsanayeen lacagtii ay shaqaysteen sida uu wariyay wargeyska The Star. qofkiiba waxa uu maalin walba isticmaali jiray $5 ayay warbixintu sheegaysaa. Mwangasi iyo saaxiibadii waxaa ka dhamaaday lacagta waxaa soo wajahday caqabad la xiriirta hooy iyo cunto la'aan. xusuusiyooyinka cajiibka ah ee soo maray waxaa ka mid ahaa in ay jiifan jireen dhismo aan saqaf lahayn. gurigaas oo uu ku taakuleeyay qof dadka deegaanka ah waxaa xilliyada roobka uu da'ayo ay u ahayd dhibaato mana aysan seexan jirin. caqabadaha kale ee noloshooda soo wajahay waxaa ka mid ah baa layidhi in walwal amni ay soo wajahayeen maadaama al-shabaab deegaanadaas ay ka howlgalayeen. ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee maamula Jubbaland markaasi hoostaga maamulka Jubbaland ayaan lahayn wax fariisimaa oo halkaas ay ku lahaayeen. Martin Mwangasi oo 35 sano jira ayaa tilmaamay in sheekadooda ay la wadaageen ciidanka KDF ta wadanka Kenya balse waxba loo qabo waayay. xaqiiqdii waxay noola dhaqmeen si aan wanaagsanayn. ciidamada Soomaaliya waa kuwo nacaawiyay waxayna siiyeen bariis iyo bur kadib markii aan maalmo cunto la'aan ahayn ayuu raaciyay. bishii June 15 isla sanadka 2020 ayay ka lugeeyeen deegaanka Ras Kamboni iyaga oo ku sii jeeda Kiyunga oo ismaamulka Lamu ka tirsan. kadib su'aalo weydiin maalintii xigtay ayay la midoobeen qoysaskoodii. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeennii wararka Soomaaliya tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.